بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكتن إذا لهنتي بداوديال هالكني وجنك حديقها في الميت جروب iyo sanad wanaagsan hadaba daawadayaal maanta waxaanu ka sheekin doonaa sanadkii 2019 ee aynu soo dhaafnay dhacdooyinkii ugu layabka badnaa ee aadka loogu baahiyay baraha bulshada daawadayaal intayna barnaamijka u guda gelin hadii aad channelka ku cusub tahay fadlan noo subscribe garee like na saar share and comment inta bas raacso ahaan kuwii ugu hadalhaynta badnaa marka loo eego media marka loo eego ama la soo gelin jiray kama hadlayno wixii caalamka ka dhacay laakiin geeyga Soomaalida maadaama inagu aan nahay ummad Soomaaliya wixii inagu ugub ahaa ama kelmid ha noqdo ama wax la sameeyo ha noqdee wax ficilo ma aragtay Soomaaliga ama geeyga dhexdeeda ka dhacay taas baynu soo qaadan doonaa kuma si dheeraanine yani waxaanu ka sheegi doonaa mid iyo 2 iyo 3 ayaan ka soo qaadan doonaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإحنا بكر كسر دوادا channel كحديقة فيلميس واحد لا دمانتين سنة عصبة ونكسن سنة كيسيلان وقارسية بش يا برواقو سي أصحابتي هروسو شيكتي وحاك شاكينا تيرو لبا مس دحدا عدوين كي Soomaalida ugu laaya ku badnaa ka dhacay sanadka 2019 ayaan soo dhaafnay marka waxaan ka bilaabi doonaa insha Allah ama noo bilaabi doonaa maxamed shaataa oo dhinaca midigta xiga shaatayo waxaad ilaa 3 baad ka sheegaysaa ama ilaa 4 baad ka sheegaysaa waxyaabihii kugu la yaabka badnaa ama wax naxdin la noqdo ama wax qosolo dadka ka qosliyaha noqdo badiyaa waxa sheegay wixii social media meerisan jiray baad ilaa 4 qodob ilaa 4 ka sheegaysaa marka bal maxaa kugu la yaabka badnaa 2019 kii aad aragtay noo sheeg wallahi Cabdiraxmaan horta way farbadnaan dhacdooyinkii ka dhacay sanadkan geeyga Soomaalida 2019 sanadkan gabagabada ahaa ee aynu soo dhaafnay yaani waxyaabihii ugu la yaabka badnaa ee ka dhacay baraha geeyga Soomaalida waxa kamid ahaa ee baraha bulshada aadka loogu baahiyay waxa kamid ahaa sheekadii gorgorka aad gorgorkii horta yaani caruurtii iyo dumarkii iyo yaani disiyo madax la wada gashaday yaani sheekadaas horta iyo halkeebay ka dhacday baa la yiri sheekadaas wallahi horta deegaanka Soomaalida ma waxa ka dhacday deegaanka Soomaalida gaar ahaan inay gobolka la yiraahdo Jarar caasimadiisu tahay Dhagaxbuur ilaa iyo inay degmada Daroor ilaa Harshin ilaa yaani Salaxlayo Soomaaliland oo gobolka Hawda ilaa Balgubadle dhulkaas oo dhan yaani waa aad ba looga hadalhayn jiray maxaa de imsa shimbirood baa la galaaftay wala lahaan waa gorgorkii maamiyad waanta soo dilaan baashay hor iyo waxa inta la dilay loo jiray waa gorgor yaani dumarkii iyo yaani caruurtii yareedna disiyo in madaxa wada gashadeen oo yaani inuu madaxa idin goosan taas la hay dhacdada kale yaani gulaybka badnaan waxa kamid ahaa hadii yaani aan soo qaadano dhacdo iska dhibaato badneed wallahi iyo ka dhacday magaalada Gaalkacyo صح عايشة كبدي لورين شري سامي هرت كبدي عايشة لورين شري الله نحرسته كبدنا والله فل آد ولا يا بدن أيا لقولا كعيد قبر Soomaaliyeed iyadoo joogto dhul Soomaaliyeed iyadoo ku dhaxnool dad Soomaaliyeed oo si arxan darro loola dhaqmay tiyaro caruur oo yaani kamida dhalinyarta Soomaaliyeed ee soo koraysa aad ku xubartay yaani dhacdooyinkaas ay kamid dhacdooyinkii ugu la yaabka badnaa waxa kale oo iyaguna aad u la yaab badnaa hadii aynu soo galo magaaladiina Hargeysa sheekada ila meeraysto wallahi maanta uu dambeeyay laga sheekeynay waqti Axmed bay ugu yiri meheraan shalay aroortii tagnay buu ka soo qayb galayo waxaan arkay iyadoo la guuxay moogti qof la soo kicinayo mikrofoonka lagu soo dhaweeyay lagu guuxay nimaba ila meeraysto waxa lagu soo wadaa waxa odagii la meeraysto yaani iyagna sheekadaas aad ugu la yaabka badneed ee baraha bulshada xoog loogu baahiyay ay kamid ahayd asxaabta ninkan wuxuu noo sheegay ilaa 3 dhacdo oo geeyga Soomaalida ka dhacday qisadii Aisha ku dhacday Allah naxariistee sidoo kale gorgorkii Allah musta'aan iyo ila meerayso aniguna hadii aan wax ku daro kulli way badan yihiin anigu waxaan hadaba soo qaadanayaa fanaanadii loo jiray ishaag deeqafro ee ayartay marka aan dhinta geed dushii halay saaro taasina waxay hayd tii ugu la yaabka badneed sina looga naxay haddana sina loogu qoslay tan labaadna waxa weeyaan maxay sheekadii Hargeysa ka dhacday waa kalaam ka soo yeeray nin siyaasiya wuxuu yiri bisada Hargeysa joogta waxa ka nasiib badan tahay qofka Muqdisho ku nool moogti taasina wax aad loola yaabay hayd tan saddexaad ee soo raacdana waxay hayd
isla isaga un weeyaan wuxuu yidhi madaxweynaha iyagu wuxuu raaca diyaaradda ayuu bugaagta ku dhex akhristaa dhacdooyin fara badan anigana haddii aan tayada guda galo waxay igu la yaab badnayd amaba igu xanuun badnayd dhacdadii ka dhacday muqdisho maalintii sabtidii sanadkii 2019 gabagabadii dhacdadaasoo ahayd qaraxii ay ku dhinteen dadka aad ku tirada badan leh horta halkan waxaan taasi uga darayaa ummadii Soomaaliyeed intii ku dhimatay ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo intii dhaawacantayna ilaahay caafimaad saraaca siiyo horta taas ay igu naxdin badnayd oo igu yaab badnayd dhacdooyinkii 2019 ka dhacay haddii aan soo qaato dhacdo labaad oo aniga igu qosol badnayd horta intaan u gelin sanadkii 2019 dhacdooyinkii dhacay inkastoo ka warqabin badankooda haddana waxaan oran karaa dhacdooyinkii dhacay aniga ayay wada khusayeen badankoodu oo macnaha taani dhacdooyinkii khaaska ah fara badan laakiin hadda waxaan soo qaadanayaa dhacdada tii wixii iga qosliyay ee igu yaabka badnaa waxay ahayd fanaanada Fartuun Balaarka oo surwaal ku soo heestay surwaalkana ay tiri ninkii xasan toob ninka la yiraahdo iskale durdur meeriya ay surwaalkaas siiyay ama balaha oo in badan baraha bulshada ku dhex jirtay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa labadaas ayaan anigu ka warqabeynta waxaan ku weydiinayaa wax kale ma soo xasuusatay dhacdooyinkii ka dhacay geega Soomaalida wallahi horta niyo dhacdooyinkii ka dhacay geega Soomaalida horta lama soo koobi karo sanadkaas waxa sanad shar iyo khayr bootayo yacnihii waxyaabo fara badan yacnihii baraha bulshada aadka lagu baafiyay horta meedan xasuusnaynu soo qaadano burco kale Umar bin Afuuf nin ilaaba ka soo baxay moogtay oo meherad warsan ilaayo niman Ethiopian ay iska leeyihiin inta albaabada u xidhay yacnihii leeyri lama soo gali karo oo ay burco aad uga qeyliyeen dhacdadaas oo kala kamid ahayd oo iyaduna miyad ilowdeen galkacyo sheekadii ka dhacday naagtii xoolaha rag samaystay warniyo ka waxa ka daran baad Raxmaanow ninkii reer Hargeysa ahaa ya 40 aad kufsadeen kaasa ka darnaa bismillaahir rahmaanir ya sheeko ka moogtay ninkii yacni maxkamadda la soo galiyay yiri afar ablood ba yacni liidkeeda raacay taasi wuu jirtay moogtay wallahi taasi wuu jirtay waxyaabaha kale oo la yaabka badnaa waxa kamid ah adeegna يعني إلى ما يريسو هيست بيدنا لقيت ميمو إلى ما يريسو